tan iyo xalay roobkii xooganaa ee magaalada Muqdisho ka da'ayay waxay saameyn muuqata u geysteen dadyow kala duwan oo ku nool magaalada Muqdisho. Halkan hadda aan taaganahay oo ah meel ka mid ah degmada Boondheere waxaa la soo wariyay in ay ka dhasheen khasaaraha aad u badan roobkii xalay ka da'ayay ilaa iyo saaka magaalada Muqdisho. dadka qaarkood guryahooda ayaa biyo u galay sidaad hadda arki karto halkan hadda aan taaganahay oo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee dadka degmada Boondheere ku nool isticmaalaan biyo ayaa buuxsamay tan oo muujinaysa caqabad hor leh xaafadaha halkaas ku aadan dadkii deganaa ayaguna waa ay ka barakaceen taasina waxay muujinaysaa culayska roobka uu ku yeeshay wararka qaarkood waxay sheegayaan inay jirto dhimasho inkastoo aanan la kulmin haddana waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka sida dhow u saameeyay roobkii xooganaa ee magaalada Muqdisho ka da'ayay oo qaarkood guryahooda uu biyo galay waxayna ka warameen dareenkooda iyagoo baaq u jeediyay maamulka degmada Boondheere biyaha macnaha dharkii iyo alaabtii iyo raashinka ay qaadeen roobkan xalay bilowday ilaa ay goormaad aad biyaha ku dhex jirteen ilaa muddo oo 6 saac bar meel ma uga baxda guriga ma saxaafadii afuuda jirtaan meel waxa guriga ku jira oo biyaha dhex jooga ani ilmahay maxaa ku qorshaysan hadda alaabtii waatay ka halaawdo biyo galeen gurigii ina ilmihii ani oo nol difaaco wax nol siiyo eegahan Cabdullaahi Cabdiyaale dhahan waxa deganahay Boondheere waxaan ku noolnahay biyahana u jeedaa waxaan rabnaa maamulka gobolka Banaadir ka codsanaynaa dadku way rifaadsan yihiin biyaha galeen guryahooda waxay haystaan male dhibaato xalal dhan maysan hurdin waxa ka codsanaa gobolka Banaadir inuu wax noo qabto iyo maamulka degmada Boondheere ma ka qabto qof noo soo baxdo noo soo gurmado ilaa hadda ma aan arkin waxaan rabnaa inuu maamulka gobolka Banaadir iyo muslimka oo dhibaataysan inay dhibaatada ka saaraan ee biyaha naga dhamaan looga yeelaan shacabkan barakacayaan dhibaatada ay ka bixiyaan kasokow roobkaasi inay burbur gaarsiiyeen guryaha qaarkood haddana waxaa intaasi dheer in roobku ay waxyeelo dhimasho ah gaarsiiyeen qoysas degmada Boondheere oo kaliya waxaa laga wariyay in 2 qofood oo shacab ay ku dhinteen kadib markii uu biyaha qaaday sidoo kale degmada Xamarweyne qof shacab ayaa ku soo dumay guri kaasi oo dhintay telefishinka Universal warar kale oo uu ka helay degmada Hodan waxa ay sheegayaan in cunug yar oo ku ciyaarayay biyo ay biyihii qaadeen sidaasna uu ku dhintay sidoo kale roobka magaalada Muqdisho tan iyo xalay ilaa isaaka ka da'ayay waxa ay sabab u noqdeen in la hakiyo imtixaankii mideysnaa ee dugsiyada sare ee dawladdu ay qaadaysay taasi oo dib loo dhigay tan inta roobku uu ka feerayo Nasr Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho